wasiirka wasaaradda waxbarashada barbaarinta iyo sayniska Soomaaliland Professor Ismaaciil Ducaali Yuusuf ayaa kormeer indhayn ah ku tagay dugsiga Sheekh Cali Ikhwaan. Kormeerka wasiirka wasaaradda waxbarashada waxa ku wehelinayay gudoomiyaha degmada waxbarashada, agaasimaha waaxda waxbarashada aasaasiga ah xildhibaan Barkhad Batuun iyo mas'uuliyiin kale. Ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadlay maamulaha dugsigaasi Mudane Saxardiid waxaanu ka waramay baahiyaha dugsigani uu tabayo. wasiir iyo xildhibaanba iyo gudoomiyaha dhammaan madaxda in balbaahidii iskuulka aad noola eegtaan maadaama aanu ku joogno 15 macallin oo macallin kaliyana aanu ka qaadan wax maxaan ku idhaahdaa gurna ama beero dawladeed marka laga reebo 2 macallin oo aniga oo maamulkiya iyo macallimiinkeedii dhigta oo waliba joogtay muddo ku dhawaad 20 sanadood hibaaq maxamed la yiraahdo. waxa kaloo jira amina gudoomiye khayr Allah siiye in maalintii maayarku oo labada macallin uu qaadanayay in 2 macallin oo kale ay noo raaciso xagga 4 iyaguna dawladda hoose ay gunada ka qaataan. gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee degmada Hargeysa Aamina Casayr Magan, agaasimaha waaxda waxbarashada aasaasiga ah Axmed Ismaaciil Cabdi, xildhibaan Barkhad Batuun iyo komishineero ayaa halkaasi ka hadlay waxa ay dhiirigeliyeen ardayda dugsiga hoose dhexe ee Sheekh Cali Ikhwaan. markii dawladda hoose qaadanaysay iyaga si kale aan u eegay macallimiinta halkii 2 laga qaadanay 4 baan uga dhignay maadaama aan macallin qori aanu macallimiin mushahar aanay joogin. ardaydana waxaan leenahay maanta nasiib baa u yeelateen dawladdii wada jir iyo waxqabad wasiirkeeda u horeeyay inuu idin yimaado oo xildhibaankiini tacabka badan iyo madaxdiini galiyay hor taagan yihiin. waa haysan maanta madaxdiini tacabkeedii waxaynu galaynaa imtixaanadii baynu galaynaa kimir teeramkaana waynu galaynaa. ardaydii aydhka haydna way joogaanoo habliyamayna way taagan yihiin. maanta iskuulkan daami aynu joogno waxa aanu u nimi oo wasiirku nagu hogaaminaya in xaaladiisa loo kuur galo in waxa baahi iyo barnaamijyada u baahan yahay iskuulkan laga fuliyo. waxaan uga mahad celinayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada in uu nagu hogaaminayo in iskuulada iyo dadka danyartaan u adeegno. iskuulkan waa iskuulada waxa weeyaan lafdhabarta oo ah dadka bulshada danyartaa buu lafdhabar u yahay. ahaan iskuulkan wasaaradda waxbarashadu way ka war haysaa mar kastana waxa weeyaan wixii soo baxa waxa weeyaan waa prioritiska anaga koobaad buu nagu jiraa waliba intii hadda aanu waxa weeyaan xukuumadan waxaan filayaa in manhajkii oo dhammaystiran 1 ilaa 8 iskuulka la keenay ardaydana loo qaybin doono ama haddii uu qaybiyay maamulona u qaybiyay oo 1 ilaa 8 dhammaystiran. sida gudoomiyaha Aamina Casayr ay sheegtay maanta ardaydan taariikh bawt waliba taariikh weyn bawt waxay taariikh ugu tahay hablaha milicda taagan iyo inamada milicda taagan ee wasiirkoodii soo dhaweeyay ee qaabilay in wasiirkii ugu horeeyay ee wasaaradda waxbarashada soo mara uu maanta yimid iskuulkii Cali Ikhwaan ee xaafadda Daami saa maamuluhu sheegay. qofka qalinka miciinsada ayuunbaa qaranka wax ka noqonaya. marka qof kastooba qalinka qaado ardayda duruufaha adag wax ku barataana iyaga nolosha micnaha u sameeya. milic baynu taagannahay. ilaahay baa mahadle marka koowaad. marka labaad waxaan u mahad celinaynaa wasiirka waxbarashada oo maanta taariikhda galay wasiirkii koowaad ee iskuulka soo booqdan noqday. wasiirka wasaaradda waxbarashada barbaarinta iyo sayniska Soomaaliland Professor Ismaaciil Ducaali Yuusuf oo halkaasi kala hadlay ardayda dugsiga hoose dhexe ee Sheekh Cali Ikhwaan ayaa waxa uu ka hadlay in buugaagtii wasaaradda waxbarashadu ay soo gaarsiisay isla markaasina ay ka faa'iideystaan. runtii farxad weyn bay tahay oo ilaahay mahadii ilaahay ugu mahad celinaynaa inuu nagu simay maanta inaan imaado iskuulkii oo dugsigiinii soo booqdo oo aan idin arko oo farxadda wajigeena idinka muuqata idinkula faraxno aad iyo aad baan idinka mahad celinaya aadna ugu faraxsanahay. runtii sidaa la sheegay dee qalinka unbaa wax lagu noqdaa. waxa weeyaan annagu wasaarad ahaan waanu ku dadaalaynaa ardadan waa la dadaalaynaa macallimiintana waa la dadaalaynaa. haddeerto wata agaasimuhu sheegay in buugaagtii wixii loo qoondeeyey dugsigan insha Allah in agaasimuhu ku soo dadaalay inaad noqotaan kuwii ugu horreeyay buugaagta loo qaybsho.